maamoy dhiba ila soo martee miisaan xaqa lama magi karee minika jannada mawlaha ka dhigo maamoy macaan mawlaha ka dhigo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجكي دحل هويو أتكلا سعتين براها بالشدة قيبت يوتيوبك. برنامجك ولي وحيدين كجا إيمانا يا قاهرة مجال مدح ضدلك مصر. برنامجك وحنومة القلية هي أدى وحبر شدق وقابل سنقعوتيك كل قندلك مصر ACRS. maanta hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan sameyneynaa maradan baatiga ee qabowga ee faskuus baati cotton saa u taqaanin ayaan sameyneynaa. waa maro bacweyne 3 mitir ah. waxaan ka goyneynaa nus mitir aan ka reebeynaa nus mitir. marka marada waxay noqonaysaa half baac ay noqonaysaa. half baac markay noqoto ayaan xargahaas ka sameyneynaa nus mitirka aan ka reebnay. sidaa u tuleysiina waa idin tusinayaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka noqdo. مشروعاً إن فلوسيت وحابانتاي مرضي أتولي لهايد وحابانتاي متركا مقاسكا مستردة قعنتا قلنكا مقاسكي محوها أدو إلهي كورو يهي مقاسك وراقها مستردة قورتا مستردة حريجمها كل إنتا سأباهنتاي ديزاين بسيطة سمينينا هدو إلهي كرال نقضو مركوغو ريسا garbaha ka bilaabeena 18 garbaha u qiyaaseena 18 saa u jeedin 18 garbaha marka u qiyaasno cambuurka saddexda qayb oo loo baahan yahay. qaybta ugu horeysa kaliya anaga u baahanahay. qaybta ugu horeysa si fiican u sameynayna aan si fiican maaragtay uga shaqeynayna maanta hadduu ilaahay yiraahdo. haddana gacanta 25 u goonayna 25 waa maca sentiyaalka dhinacyada ka baxay wixii soo laabmay wixii ku darsamay waa intaas. waxaa ku dareynaa 5 senti ku dareynaa hoos oo ixtiyaad hadii lacala isku wareerto oo kaleeto hawsha ama 30 waa dhexda. marka waa ku soconeynaa si fiican ila socda. kadib waxaan sameyneynaa waxaan qiyaaseynaa maxal dhahay waa wada calaameynayna kulli waa wada calaameynayna oo qalinka ku wada calaameynayna saa u jeedin علشان si fiican saa ugu aragtiin si fiican oo waadax oo insha Allah inay muuqato qalinka inuu muuqdo. kadib gacanta astarada ku goynaya gacanta ku qiyaasaya saa u jeedin marka qiyaaso kadib oo qiyaasta saxda ah haysto oo isku dheeli tiro gacantan sameeyaa deertan wax yar gacanta meelaha ay gaarayso waxa loo baahan yahay aqligaaga inaad ku gaarsiisid xoogaa qorqorxin isla ekaysiis. hadhowna markaa tuleys tabcan maqaska hore u qaadanaysaa maqaska wax walba ku saaniinaysaa. intaa kadib khoortan sameyneynaa hadeertaan khoortan qiyaaseynaa khoor weyna u sameyneynaa calashanta ee freestyle ee u noqoto hulufuluf oo kale kaskuleelaha dhar hulufuluf la xirtaa qaboobahan dhar kugu dhagan la xirtaa. maqaska ku goonaya inta u baahanaya horta warqada ka reebaya. marka warqada ka reebo inta kale waxyaabo qashin badan kuma jiro laakiin xasameynaa hadeertaan loofkan sameynaya horaadada korkooda kusoo hagaagayo calashan si qurux badan si uu ugu soo baxo. hadda iloodid meeshaas la calab xara ku jirta. waxyaaba ugu muhiimsan warqadan ee looga baahan yahay ayaa waxa faahfaahintaasito meelaha horaadada dhexdooda ku imaanaya meelaha garbaha ku aadaya meelaha beegooyinka looga baahan yahay inaad si fiican oo isku dheeli tiran aad ugu sameysid waraaqaha ayaa loo baahan yahay. marka xigta waan jarjareynaa warqada inta u baahanahay aan ka reebeynaa hadduu rabbi subxaanahu wa tacaala raali uu ka noqdo. marka inta u baahanahay aan ka reebo inta kale xitaa ma tuuraayo la'aana maxaa yeelay hadhow ayaa u baahan doonaa. hadhow markaa u baahdane haddaan qashinka ku tuuro ama isku jijibiyo waxay u kalifaysaa danta inaan kow ka soo bilaabo aan maaragtay si qurux badan si aan dharkeygii aan ugu jaro.
hadda waxaan sameyneynaa waxaan calaameynayaa riigooyinkii xariijimaha midba midda kale waxaa la rabaa 5 senti inay ka fog tahay si aa u helo qiyaas isku dheeli tiran 5 senti 5 senti 5 senti sidaas ayaa u calaameynanaa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 square-ka waa 60 ilaa 60 shan u kala gogoynaysaa because waa 30 asagoo isku laaban 30 u ahaa markii la kala bixiyana 60 uu noqonayaa so shan uga boodaysaa hadaa duleelo waaweyn aad rabtidna 10 uga boodaysaa xarga kala fog ama afar geesyo kala fog ku soo baxa waa calaameynayna hadda 5 senti aan mastarada si fiican oo la raacayna si aan u helno xariijimo isku toosan min bilow ilaa iyo dhamaad saas u jeedina oo calaameynayna oo la raacayna dhererka waa 5 senti balacana waa 5 senti ha iloobin square qurux badan ayaa ku soo baxayo hadhowna aqligaaga ayaa la kaashanaysaa meelaha warwareega uu galaya sida qoorta gacmaha markaad sameynaysidna aqligaaga ayaad la kaashanaysaa waana arki doontiin insha Allah sida aan u talaayo waan soo duubay insha Allah inaanan waxba ka tagin rajeynaya oon si fiican wax u soo duubay marka insha Allah waan wada joognaa anigana waaba kor taaganahayo insha Allah waan arki doonaa wixii iga qaldan iyo wixii sax ahba si walba ha ahaato xariijinta dhexda waxaa loo baahan yahay dhexda inay ku soo hagaagto si ay falaar oo kale ay u noqoto falaar fiican oo ama udub dhexaad camburka udub dhexaadkiisa ay u noqoto oo iskugu dheeli tirto labada dhinac kuwa xariijimaha jira iyo boxyada jiraanba si ay udub dhexaad fiican ee ugu noqoto oo si fiican loo arko because waxaan waa dhar qof bini aadan oo xiran doono soo waxa loo baahan yahay sida ugu fiican ina ooga shaqaysid waan soo dhameynay xariijimihii verticalka ahaa hadda waxaan bilaabeynaa horizontal aan bilaabeynaa ama dhinac balac aan u soo wadeynaa 5 senti uli way socotaa 5 senti calaameynayna si eesas isku dhex galaano box isla eg oo qurux badan uu u soo baxo calaamadaha marka ku dhameeno mastarada qaadanayna mastarada hadana aan balac hadana aan ku qiyaaseena aan ku xariiqeena hadana markale marka wuxuu noqonayaa boxyo isku dheeli tiran noqonayaan sida aad arki doontiin waqtiyada soo socda marka intaas mareeno oon xariijimeyno oon diyaarino marada ayaa idin dhihinay sorry warqada aan diyaarino oon xariijimeeyo oon maxaan ku dhahay qiyaasteeda saxda aan haysto wax walba diyaar ay yihiin by the way mastarada yar maahan mastarada dheer waa isticmaali kartiin oo hal mar wada xariijimeynayso laakiin ani ahaanteeda waxaan is dhahay tana igaga fudud laakiin waxay u egtahay inaysan ka fududeen laakiin qof kaleeto hadduu rabo inuu sameeyo mastarad dheer uu ku calaameyn karaa waa ku xariiqi karaa oo hal mar dul saaraya kadibna waa ku xariiqaya xariijimahan waxay ku soo baxayaan xariijimo isla eg bokisyadana waxay noqonayaan bokisyo isla eg meelaha qaar aan mastarada loo baahneen qalinka waa oga shaqeyn kartaa waad ku saaniyin kartaa marka intaas aan mareyno aan wada dhameeno oon isku dheeli tirno waxyaabaha extraga ee iska bixi x saar hadhow si aadan ugu wareerin waxaynoo diyaarsan qaybihii hore ee cambuurka qaybtii hore iyo qaybta dambe mar aasku wada diyaarinay marka haddii ilaahay subxaana watacaala uu ka raali noqdo waxaan sameynayaa hadeertaan xargahiina waa kuwa waxaan sameynayaa hadeertaan qaybtii hoose ee xargaha ku tulmi lahaayeen
so maradii aan idin warqadii aan idin sheegay in loo baahan doono hadhow qiyaasta saxda ee aan u baahanahay ayaa ku qoran. so warqadii aan soo qaatay, cambuurkan dul saarayaa saa ujeediin. marka waan ka jarayaa intaas yar vida ka maqan ayaa u baahnaan lahaa inaan iska baxsho, laakiin warqadaas la-aanteeda waxay igu noqon lahayd ama inaan wax yar gooyo oo cariiri ah ama inaan wax badan oo faaxsan aan gooyo. marka saa darteed waxaa aad iyo aad muhiim u ah waraaqaha qeybaha aad ka bixbixinaysid in aadan tuurin, meel aad dhigatid, dhinac iska dhig. hadhow markaa cambuurkaaga dhamaysidna haddaad doontid qashinka ku dar, haddii marka loo baahan doonana dhinac iska dhigo. laakiin kuwa xargaha lagu kortalayo sinaba looguma baahanayo oo kuwaas spoiladay noqonaa, way halaabayaan. markay halaabaan laba mar lama isticmaali karo, mar kaliya la isticmaali karaa xargaha kuwa ku tolaysid, laana harqaanka tolaya kadibna way halaabayaan. diyaar noo tahay maradeeni kii kore saasay isku dhexgalayaan perfect skin, waa la isku jarayaan ku yara meesha. marka saasaa u tolnay xargaha ku toltolay oo maaragtay maadaama xargaha badan yihiin waxaas dhahay kuwa basiga toltol kuwa kaleetana waa isla arkeenaa hadeertan. marka xargaha waa saare waa ku tolo waa saare waa ku tolo waa saare, warqadaa dul saaray, xariijimiyaa la raacay, aan ku wada dul tolay saa ujeediinba. waxaan tolay kuwii udub dhexaadka ahaa. haddana insha allah waxaan ku tolayaa kuwa dhinaca aan maaragtay aan u tolayo ama verticalka ku imaanaya aan toleynaa hadeertan. sidaasaan aan ugu tolayaa. waa ujeediinba maradii hore kor saareysaa. marka hore xargaha sameyne, marka hore xargaha diyaarsanaysaa, kadib maqaskaaga soo dhaweysane, waa dul saare, waa tole, waa goynaysaa, waa dul saare, waa toleysaa, waa goynaysaa, waa dul saare, waa ku toleysaa, waad ka goynaysaa. intaasay noqonaysaa. kadib way isdhaafayaan. bokisyo waxaa kuu soo baxaayo aad iyo aad u qurux badan. meelaha lagu tolaayo inaa idin tus uma baahnidin because calaamadahoodii aad haysataa. calaamadaha u baahneen xx ka saareysaa, calaamadaha u baahan tahayna sidooda ku dhaafay cashan saa u kala garatid. lacala haddii wax isku qasmaan ama isleedahay waa iloobi doontaa, tan aa u baahneen xx iska saar, tan aa u baahan tahayna nadiifa ku ahaato. kadib saasaa ujeediinaan u tolayaa, waan dul saaraa, waan ku tolaa, dul saaraa, ku tolaa. kadib waa isku sii wada tolayaa calaashaan si qurux badan si ay u noqdaan oo maaragtay wax la fiirin karo meesha inuu ka soo baxa waay. meesha iska tolmaa waa inaa si deganaan u tashaa, tartiib u tashaa, taagtaagsi u tashaa. haddaa iswaawaashid qurub meesha cantar iska dhigtid wixii oo dhan way isku qasmayaan. midda kale warqadan markaa wax ku dul tulaysid ayada xitaa waa dildilaacaysaa. warqada waa dildilaacaysaa, waxay noqonaysaa warqad dildilaacsan ay noqonaysaa. markay dildilaacdo haddaadan si deganaan u tolin wayba kaa kala daadanaysaaba. waxaaba macquul inayba kala yaacdoba ayadoo dhanba. marka tartiib u tola. waa ujeediin maasha allah, allahuma salli calaa maxamed. wax kaloo kusoo baxay dareeskan. waa iska tijaabiyey ayadoo la tolaya arkay, waan iska tijaabiyey. waxaan isdhahay bal isku day, waaba intaasoo wax kasoo baxan. dadka tolaya waxay ka tolayeen dharka xafladaha lagu aado oo muhiimka ah, oo xafladaha lagu aado, aroosyada, xafladaha maaragtay munaasabadaha lagu aado. dhar oo swaari shining ka tolayeen. marka anigan baatigeyga ku jari baan isdhahay, ma fahanteen fikradana khatar ayaa noqotay, waa shaqaystayaan ku dhahay. marka saasaad aad u tuleysaa. kadib waxaa noo soo harayo meesha vida ay kusoo aadeyso. vida markaa saas aad u sameysid, warqada aad ku toshid, warqada ku tabideysaa. warqada saas markaa aad ku toshid
way qaloocanaysaa laakiin warqadii inaa ku korta bitidaa lagaa rabaa si ay u degto maxaan dhahnay si ay u degto kan maaha kii la dildilaacinayay warqadaa ka hooseysa warqadaa ka xoog badan oo isku soo laabayso isku adkeynaysa laakiin waxaa loo baahan yahay si deganaan inaa maaragtay meesha ugu tushid si ay taabit u noqoto meesha ugu dhegto intaas markaa mareyno meeshii loofka ahaa oo imaanayay saa ujeediin horaadada korkooda imaanayay aan saaniyeynayna by the way markaa tushid oo diyaarisid ood isku dubaridid waxoo dhan aad daawatid wixii aad tashay horta wax fiican inay yihiin iyo in kale ood nafsadaada waxaa u quurleed inay tahay iyo inaysan ahayn waxaa sameynaysaa mitirkaa soo qaadanaysaa mar kale soo qaadanaysaa qiyaasta saxda ah oo qofka biniaadanka min kalxantiisa ilaa iyo kilkilaha hoostooda oo ku imaan kara ama horaadada korkooda ay ka reebaysaa haddaadan ka reebin wuxuu noqonayaa shabaq horaadadiina banaankaaba lagu arkaa markaan dhammeynay toltolitaanka kadib waa saaniyeynayna waxyaabaha extraga zaa'idka ahoo dhan tartiibaa maqaska uga goynaysaa tartiib si aad ula sintid wareega gacanta wareega qoorta loofka horaadada korkooda imaanaya waxoo dhan inaa isku saaniyeysadaa la rabaa xayallah wax itaa toshid barag ka siisid maaragtay aad rabtid hadhowne customarka inay kuu soo laalaabtaan lagama yaabo waxaaga haddaadan qurxinin wax qurux badan aadan meesha keenin dadka zabaayinka way kaa cararayaan intaas markaa mareyno xargihiyaa sameyneynaa hadeertaana idin tusaaya xargaha waraaqaha lagu kortolaayo siday u egyihiin maro yaraa soo qaadaysaa 5 senti waad isku laabaysaa يعني بلعيد 5 سنتي علشان 2 سنتي ونص iyo 2 سنتي bar iyo 2 سنتي bar si ay u noqoto ayaa isku laabaysaa waa tuleysaa dhinaca ka tuleysaa kadib biinka dhex gelinay waa ku jiidaysaa waa ku soo bixinay waa arkaysin insha Allah marada waa 3 mitir waaye dhererkeeda marka intaas oo dhan waa isla wada jiideynaa u maleynayaa waa isla wada toleynaa ilaa ay dhamaadka dhinacyada ka tuleysaa saa u jeedin dhinac bar islaana u gadinay marka hore laakiin bar islaana u gadinaysaa marka bar islaan u gadisid ayaa tuleysaa kadib si hadhow dhinac fiican uu kor ku soo maro oo ku soo baxo dhinac fiican aad u heshid ayaa dhinac u tuleysaa marka dhinac u tushid berbera u tuleysaa ayaa rabaa berber markaa u tushid markaasaad dhinac fiican aa soo saareysaa oo xarig saani oo qurux badan aa ku soo baxaya xargaha hadday balaaran yihiin hadday dhuuban yihiin hadday dhexdhexaad yihiin hadday wax walba yihiin sidaasaa u tuleysaa marmarka qaar kuwa yaryar dun ayaa lagu tolaa oo waxaa la dhexgeliyaa irbad u gaar irbadii ma haya aniga laakiin calaa xasab macrifadeeda isku dabaraya inta aan maaragtay inta aan awoodi kara camal isku dabari kara ayaan isku dabaraya kadib biinka soo qaadanaya biinka maxaan ku dhahaa biin ma la dhahaa kan mas isbiin la dhahaa moogi biinka soo qaadanaysaa waa isku xiraysaa marada dhex gelinaysaa hadhowne kana marada dhinaca fiican kuu soo saaraya ama xariga dhinaciisa fiican kuu soo saaraya markaa saas u gelisid saa u jeedin darafta soo qabanaya darafta yar hoose aa soo qabanaysaa darafta soo qabane waa xeeleynaysaa waa tuugtuuge waa gadine waa barye waa jiize يعني ilaa dantaada ka gaaraysid saasaa u kala bixbixinaysaa ilaa iyo xoogaa gadaalaa yara geyne waa soo yara jiidaysaa waa sii jiidaysaa adig un maaragtay intii dantaada aa ka gaaraysid oo marada aa ka wada gedinaysid xariga aa ka wada gedinaysid saasaa u tuugtuugaysaa
ka dambe waa gedinaysaa marada si fiican saas u gedinaysaa markaad gedisid waa ka xarigiya soo baxay ma sha Allah xarig qurux badan oo macquul ah soo baxay iska meel dhaxaad laakiin intii dambe la isku heestaa intaasna waa la jiida waa la waxeena waa la saayiraya calashan si aad u heshid xarig qurux badan oo isla eg oo aan kala weynin caadatan sidaas marka u gediyo waan dhinacyadan ka tolaa kii hore dhinacyada ka tolay hadda arkiiseen wuxuu ahaa xarig taabid oo maaragtay isku dhagan wuxuu ahaa xarig taabid ah isku dhagan laakiin kan okay waxaa isdhahay maxaa u toltolaysaa waan ku fikiray inaan tolo aan saaniyeeyo sidii kuwii hore aan ka dhigo haddana waxaan isdhahay maxaa u tolaysaa oo kida tolitaana kormaraya warqada lagu tolayaa marka wuxuu dhan tolan waa isku badanaya so dhexda anigoo maraya aan ka noqday fikradda inaan sidaas iskugu tolo laakiin caadatan xargaha qaarkood dhinacyada laga tolaa qaarkoodna ayagoo sidooda ahaa lagu sameeyaa waa haddii aad wax kale kusii kortuleysid meelahaas markaa maraya anigu waan iska joojiyey kadib sidaas uu noqday waa dhinacii kaleeto maaragtay maya dhinacii hore waa kan dhinacii hore waaye calashaan qalaas waan kii kalena waan tolay kaamirada gadaasheeda aan ku tolay maadaama kan aad u wada joogteen kulleyba waa isku siyaa loo tolayaa marka waxaan sameynayaa waan tolayaa hadeertaan marka aad tolaysid waxaa la rabaa meesha loofka inaad ku aadisid loofka kaleeto inaad ku dul aadisidaa la rabaa waa ka xumahay kaamirada inay ii shidantaa umaleynaye iima shidneen laakiin loofka ku aadinaysaa meesha vida iyo meesha loofka ka sameysay isku dul aadinaysaa kadibna waa isku tolaysaa si tartiib ayaa iskugu tolaysaa dhinacaad qabanaysaa waxaa sameynaysaa meesha marada ay ka bilaabanayso ayaa waxaa ku tolaysaa loofka meesha uu ku dhammaanayo dar islaana ugu tole kadib insha Allah waa qiyaasanaysaa darafta isku aadinaysaa wallahi waa ka xumahay kaamirada inay ii daarantaha u maleynaye laakiin ma ay daarneen anigoo daalay oo dhididkeyga shanshan u da-ayaan arkay in maaragtay aysan daarneen alxamdulilah haddana dhib ma laha maalin kale idin tusi doonaa mid kalaan tolayaa hadduu ilaahay yiraahdo waxyaabaha sida la iskugu qabanaya waa muhiim intan oo juhdi qof soo maray meesha ugu muhiimsaneed in laga arki waayo waa qalad dhacay qadar Allah ma shaa facal marka saa u jeedin waa garbaha isku toleynaa hadeertaan labada dhinac almost way diyaarsan yihiin garbaha isku toleynaa marka isku tolna garbaha dhinacyadana waan isku toleynaa hadda intan waa intii ugu dhibka badneed qofkii raba cambuurkan inuu diyaariyo intan waa inta ugu dhibka badan cajaa'ib cambuurka inta tolayo dhan sahlan oo arkayay laakiin meeshan markaa imaade waa dhiiqdayaani waa bixi waaye waa socon waaye waa idhibay intan waa inta ugu dhibka badan dhinacyada markaa ka toshid waxaa ula jeedaa yani dhibka badan waxa waaye qoorta markaad ku laabaysid marada oo laa tuusaf wallahi waa aad iyo aaday u dhib badan tahay markaa marada qoorta ku laabaysid markaad gacmaha marada ku laabaysid gacan caadi meesha ma taalo xargaa yaala xargihiyaad la raadinaysaa maradii waa ku dhibtoode inta cambuurka uga gooyay inta xirgaha ay iga gooyeen baaba igaga darneed adduunyada maclish waa kasoo gudbay hadeertaan alxamdulilah laakiin waa bartay wax walba maalin baa la bartaa sooma waan bartay intaas oo maaragtay adii saa ula rafanayo waan iska dhacshay markii dambo ilaahay ila garab galay alxamdulilah dhinacaan tolayaa haddana dhinaca kale ayaan tolayaa ayaan u maleynayaa garbaha marka hore isku toleynaa
garbaha waa simple, garbaha xabadaa meesha saaran, xabada kale ku qarrafine keliya. Dhinacyada hadda aan weli marayaa, sorry, dhinacyadaan ka tolayaa. Markaan dhinacyada ka tolo aan dhammeey jihaadka markaasuu bilaabanaa. Waraaqadii ay waxaan la dagaalayay iyo maxaa ahaa xargihii, muxuu ahaa leega dheh, xargaha iyo waraaqda adduunka wax ka dhib badan ma laha. dhinacyada waa iska sahal, dul saareysaa berislaana isku saareysaa, yacni waxaad isku saareysaa dhinac fiican iyo dhinac fiican aad iska soo horjeedinaysaa. haddaad dhinaca xun iyo dhinaca xun aad isku soo jeedisid tuliinka kor u kaa soo maraya. muuqda sidaasay way jirtaa African dresskoo kale laakiin kan waxaa loo baahan yahay in hoos la geliyo tuliinka inuu hoos galaa loo baahan yahay si aan u helno baati horay u maray. ma fahanteen? waa fahanteen. marka waraaqaha waa la yaabantiin goormaa laga goynaa, goormaa laga jeexa, goormaa laga bixinaa waraaqaha. aakhir shay cambuurka marka la dhameeyo waa waxa u dambeeyo oo la sameynayo waraaqaha bixintooda waaba shaqo kalabo. warheed waxa waa sahalsanaye, laakiin sasa ujeedino karkaas dhan ma ujeedin, xargaha soo taagtaagana la rabaa in la edbiyo, edeb loo yeelo, meeshooda lagu celiyo. gabal warqadaas waxaan soo qaatay mara ah, waa 10 senti waay maradaas, 10 senti waa isku laba laabe, waa 5 senti iyo 5 senti. garbihii ayaan markaan si walba u gediyo qoorta wareegeeda. markii dambe waa isu soo biimeeyay, waxaan eray war wixii ka dhici lahaa ka dhacay, bal sidii aa wax u laabi jirtay u laab maanta. subxaan allah, man khayara al-axwaal. war ilaahay baaba ila garab galay, iska aamus. hadda laakiin waa bartay ima gaadaayo mar kale leesma gaadaayo. waxaan ku wareejinaynaa duudka markastaba qoorta aa ku wareejinaysid marada, shabaq haddee tahay mara caadi wax walba ee tahay, dhaabarka ka bilaaw si qoorta nadiif ee kugu noqoto, mara nadiif ee kugu soo baxdo. wahayde jihaad allahu akbar aan ku jiraay, ila socda insha allah. meeshaasaan maaragtay aan ku wareejiyo maba arki kartiin xitaa, anigi baaba isku qasmaybo. casaabtii intay igu kacdayaan isku qasmay, marba waxaas dhahay maba jexjexdaaba waxoo dhan intaa ku qareeri. haddana samiraan ka qaatay, waxaas iri bal waxa aa ku soo daaleysa maanta oo dhan, haddana ha tuurinay xoogaa xaabil oon isku day, waa intaasoo kuu hagaagaya. alxamdulilah akhiiran wuu hagaagay. waxaan gedgediyo, waxay warqada kala dilaacdo, waxaan maaragtay dhinac u gediyo, waxaan si walba yeelo, waa hagaagtay. markii dambe wuu hagaagay alxamdulilah. waanba malaysan waayeybo, mufaaja'a igu noqotay. alxamdulilah, allaahuma laka alxamdu washukr. marka isku dayga walaahi ma xumo, samirkana maasha allah waaba wax walba muftaaxooda, muftaax alfarj waay, fahanteen? marka sidaasaa marada ugu dul wareejinaya. maradaas 10 senti ah. marka dharka aad diyaarinaysid inaad waxyaabahaaga diyaarsatid, maryaha qoorta lagu laabayo, gacmaha kuwa lagu laabayo way iska fiican tahay. laakiin mar walba ani waxaa imaajin gareynayay si kale inuu noqon doono cambuurkan, sidii aan aqaanay mu ahane, si kale inuu noqon doono, balsena si wanaag sidii aan aqaanay ayaan ku dambeeyay. sidii aan aqaanay noqoto markii dambe. marka insha allah sidaasaan ku wadeynaa oo maaragtay aan kaga faa'iideysanayna waraaqaha pattern la dhaha dharkan. meelaha maaragtay hodkutoorada, dadka dharka moodada dadka u jaban inta badan waxay isticmaalaan waraaqahan alashaan si ay qofka korkiisa ugu tolaan cambuurka, kaanoo korkaaga in lagu tolayo kaleeto, inta lagu dul saaray lagu kor tolayo kale. cambuuro ay soo saaraan meelaha dharka laga xayeysiiyo, waa ka aragteenaan filaya. hadda qortii aan xarbigeeda ku jirnaa, waxaan la xarbiyaba waraaqdii kala dilaacday. qortii maaragtay waxaan ka cabsanayay inay kala fakato, maadaama warqada ay aad u jilicsan tahay, harqaankana uu sii daashaday. waxaan aad iyo aad uga cabsanayay inay iga kala fakato
oo qiyaastii qoorta aan isku keeni waayo maba arki kartiin anigaaba arki waayaba oo tolaayaba meesha fadhiyey marka المهم cabsi iyo walwal badan kadib iska hagaagay way ii hagaagtay hadda isku kortolaaya mafaajada markaas ay qabsatay ay wow sidii aan u toli jiray mar walba maxaa ka cabsanay meeshii lacmo dagaal bartiyaan oo way dhiirida markaan hadda waa isku tolaaya saa u jeediin waa isku tolaaya markaan isku tolo ayaan haddana dib gudaha ugu laabaa gudaha aa lagu laabaya banaanka ma usoo laabis gudaha ku laabaysa calashaan si uu u noqdo wax isla eg uu u noqdo because kii gudaha kor aa ku tashay iyo kan gudaha way isdul saarmayaan kadibna isku dul tolaysaa kadib waxaa kuu soo baxayo silsilad maal lahaa mas xariga lahaa kan qoorta lagu laabo wallahi afka harqaanka xataa waa laga badiyaa af Soomaaliga iska day afka harqaanka xataa waa laga badiyaa kan oo marada hoos cambuurada lagu laabo soo baxayo kadib wuxuu noqonayaa ma sha Allah wax balaay ka dhacday markii hore waxa isdhahay marada way qashin badan tahay way flower badan tahay dhirta ku badan tuliinka ma muuqan doono ma qurux badnaanayo laakiin tawakkaltu ala Allah ayaan ku sameeyay ما شاء الله وحان فيلين بان كسو بودي ما شاء الله الحمد لله آدي هذا أو فرحي وحيابها نفتي ذا تحدي عن لقله كميتها عمبور كان وكميتها وحيابها عن نفتي عن كل challenge قريون صدها هذا سمي واسد كورن مركان لما جر نفتي يقصوا على هذا سمي واسد كورن هذا سمي واسد كورن مركز عن داوب وأركينا wax baati bolol la raadiyaa marka hore horta laakiin kan baati bolol xataa muu raadinin waxaas dhahay aka adagtaa cabalaas laakiin waa ila giday akhiran qoort saasay noqotay u jeedin way degtay gacmaha la laabeena hadana gacmaha waa iska basiid laakiin mar walbaba waxa fiican horta waxa inta aadan isku tulinba inaad iska diyaarisid fiican mar hadda isku toshid waa dib sida mar kale maaragtay haddana u saaniyist ama u saxsaxdid waa dib walaa bila wartii dheereeda ay ugu dhacday ilaahay waa ila garab gal alxamdulillah waaba karay laakiin maxaa wixii tagay lama gocde waan karaayay aada ooga raayay waa la xarbiyay dhulkan ku garaacay warqad u soo qaatay qalin u soo qaatay mastarad iyo cabir u soo qaatay waxaan ku dhaawaa ka soo raayay ma sha Allah alxamdulillah allahumma lakal hamdu shukr idinkan hadda isku daydin kan iyo ku ka fiican 100% asmin kartin kan hadda waxa ilaa bay iga tirsaa oo arkay waaybo waxaan ku dhahay ashkaal iyo alwaan oo soo saaray ashkaal wa alwaan insha Allah biidnillahi alkarim haduu ilaahay nafta baanti iday waaye hadii aan dhintana cafi iyo masaamax kulligiinba cafi iyo masaamax waa ku noqoneena tolitaankan si u fahano on waxyaabo kale oo ka fiican aan u sameeyno ilaa inta meeshaar ilaa laga soo matago oo dhoo bas jooji kan waa nacne nooc kasta naga dhaaf wax kale noo keen intii laga dhahayo waa diyaarsanahay waan ku dhaawaa daba ordaya hada noocan waa full neck xabadka buuxa waxaan sameynaynaa marka soo socoto insha Allah mid oo xogaa maan ku dhaa xogaa adii kuleelaha naasibay oo lagu haweysan kara camal jihad Allahu akbar ka dhacay waxa la sameynayay cambuurkan waa lagu jihaaday alxamdulillah gacmaha sameeyna hadeertan nafsi sidii qorta aan ugu laabay ayaan garbahana ugu laabaya si sahlan oo basiita oo aad in maaragtay aan ula qabsaday on video aan darsayo waxba kala fikrin laakiin waraaqaha way weerariyeen sarax way kala cararayeen way dilaaceen harqaanka dilaaciyay kadibna way kala cararayeen waraaqaha wadnaha igoyn intaas ku soo qabanay
marka waa diyaariyey gacanta kala diyaarinaa haddana kadib cambuurka waan bardhaameynay hoosna waa kalaabaya horta hoosa kalaabaya laakiin marka hoos kalaabayay kaamirada inay daaran taablinayay mandarnin hoosa kalaabay yani laab yaroo biside sida gacantaas ugu laaban tahay laabwey maba arki kartin anigaaba arki waayeyba aniga tulaybaaba arki waayeyba oo takhmiinaan ku tulay maaragtay allah isku aadiye camal aan u tulay marka alxamdulilah ilaahi waa ila garab galay waxaan lasoo jihaadoba hadda xitaa gacmaha aad sidaas aa u tolaayo waxa u maleynaa kaamirada inaan joojiyo ma ogin kaamirada inay duubeyso because haddee u maleynaa inay duubeyso waa soo dhaweyn laha xataa cala alaqal mar inaan joojiyo ayaan howsheeda iska wataa oon inta daaro daarmi weysaa bahalka kaamirada lagu rakibaa xoogaa waa iska dhib badan yahay sidii maaragtay relax maaha telefoonka waa ka yar weyn yahay xoogaa marka mar inaad daartidaa moodaa wuu isdaminaa inuu dansan yahay moodaa wuu isduubaa waa ku wareera saraax laakiin si kastaba ha ahaatee labada gacmood waan ku tolay maasha allah warqada hadda la gaaray waqtigeeda warqadan qabana waa fiiqa seta fiiqa mugtaa way idibta ayada xataa fiiqoogeed square iga noqotay meelay gagashay oo maaragtay aan kasoo saari waaye tuliinada qaar balaayada kaa quslinin balaay maana layiri tuliinada qaar ee dhex gasho waaba kasoo saari waaye dagaalkii adduunka ka dhacay way wareeris maasha allah waa kaa waan kasoo wada saaray saasuu wegyahay cambuurka wixii aan soo toleynay maanta dhan warqad iyo qalin iyo mitir iyo maqas iyo wax aan u soo hinjineynay maanta dhan hadalka nooga dhammaaday intaasuu ahaa hoosaan ka laabay love maasha allah allaahuma salli calaa sayidina maxamed cambuurkii oo dheelitiran dhammaystiran qurux badan waa ka hafbaacan ka reebay hawa waayaan ku dhaha alaabtan hawa aan la dhaha iska haweyso kor iyo hoosba ka haweyso maasha allah korna waa ka diilimihii horta perfecto kusoo baxa wallahi waan jeclaaday maasha allah allahuma salli calaa maxamed ilaahayow idin fududee idinkana markaa sameynaysiin anigana caqligayga iyo xafid marka aada u jeclaaday markaan tolay kadib inkastoo jihaad dheer aan la maray haddana way cajabi maadaama jihaad lagu tolay xarifkan maasha allah allahuma salli calaa maxamed waa anigoo idin leh subscribe like share comment ha iga iloobin assalaamu calaykum